maanta oo isniin ah ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa ay xukunno kala duwan ku riday laba nin oo ahaa ajaanib laguna helay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaasi oo maxkamadeentoodu ay soo martay heerar kala duwan. Darren Antonio Barnes oo u dhashay dalka Ingiriiska iyo Ahmed Mustaqim bin Abdullah Hamid oo u dhashay dalka Malaysia ayaa maxkamadda ciidamada ku heshay inay muddo la shaqeynayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka howlgala Soomaaliya. Maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in Darren Antonio Barnes uu la shaqeynayay madax badan oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kalena uu ka mid ahaa rag qorsheynayay inay weerar ka fuliyaan dalka Faransiiska sidoo kalena wuxuu ka qayb qaatay dagaallo ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kale maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in Ahmed Mustaqim bin Abdullah Hamid uu u dhashay dalka Malaysia Al-Shabaab dhexdiisana looga yaqaanay Al-Ansar uu sanadkii 2009 uu ku biiray Al-Shabaab isla markaana uu ka qayb qaatay dagaalkii gobolka Galgaduud Al-Shabaab kula galeen Ahl-Sunnah wal Jameeca. Sidoo kale maxkamadda ciidamada ayaa sheegtay in Darren Antonio Barnes iyo Ahmed Mustaqim bin Abdullah Hamid ay isaga tageen Al-Shabaab iyagoona doonayay inay ku biiraan kooxda Daesh balse safar dhinaca badda ah oo ay ku tageen dalka Yemen laga soo celiyay ugu dambeyn 18 Abriil ee sanadkii 2019 ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada Puntland oo ku soo wareejiyay dowladda Soomaaliya. Ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay in Darren Antonio Barnes iyo Ahmed Mustaqim bin Abdullah Hamid lagu xukumay min 15 sano oo xabsi ciidan ah isla markaana ay haystaan muddo 30 cisho ah oo ay racfaan kaga qaadan karaan xukunka. Dhawaan dowladda Malaysia ayaa shaacisay inay la socoto xariga Ahmed Mustaqim bin Abdullah Hamid oo lagu helay inuu la shaqeynayay Al-Shabaab isla markaana ay raadinayaan inuu xukun cadaalad ah helo. Ismaaciil Adan Bariis, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.